naas nuujinta ilmaha waxay muhiimadda u leedahay waxaa waaye koriimadooda muhiim u tahay waxay muhiim u tahay koriimada jir ahaaneed iyo koriimada maskax ahaaneed oo caqli ahaan iyo jismi ahaanba inay ilmaha koraan waxay kale muhiim u tahay naas nuujinta ilmaha inayna xanuuno ku dhicin sida xanuunada oo shuban biyoodka xanuunada nafaqa darrida xanuunada oo neef mareenka ilmaha qaarkood waxaa ku dhici karta naas nuujin haddayna helin oo caano la siiyo laba midbo inay noqdaan ilmo caato ah oo nafaqa darrida nooca caatada ah amba inay noqdaan ilmo oo aad u cayilay oo iyada laftirkeeda dhibaato kale ah iyo xanuunada soo laalaabta oo ilmaha dhallaankeena 5 sano ka yar saameeya gaar ahaan xilliyada naas nuujinta ee aadka muhiimka ugu tahay ilmaha oo 2 sano ugu horeysa ah marka dhibaatooyin oo aad u fara badan oo wuxuu leeyahay kuwa dhow arki karno xanuunada cistaalada ee u imaanayaan ah iyo kuwa laga yaabo inayna noo muuqanaynin oo xilli dambe la arki doono la xiriiro wax qabashadooda dambe bulsho iyo caqligooda iyo jaceylka waalidnimo laftirkeeda marka dhibaatooyinkaas iyo saameyntaas uu leeyahay naas nuujinta haddii la heli waayo